Ma ogtahay in ka badan 200 milyan oo bakteeriya inay ku nool yihiin Australia? 1839 lagu magacaabo Thomas Austin waxa ku sii daayay 13 bakteeriya beertiisa dhexdeeda. berigaas in bakteeriyaasha la shishto waxay ahayd sport, waxaana aad looga yaqaanay meesha uu ka soo jeedo Thomas ee dalka Ingiriiska. waxay sii daayeen isagii asxaabtiisii bakteeriyaashii si ay u baashaalaan oo ay u toogtaan, laakiin waxaa ka dhalatay natiijo ka duwan taas. qaar ka mid ah bakteeriyaashii way baxsadeen dhulkaasna waxa xawayaan u gaarsado bakteeriyaasha muu joogin. taasina waxay sababtay in ay bataan waliba si xad dhaaf ah. 50 sano gudaheed ayay ku faafeen bakteeriyaashii qaaradda Australia, meel walba waad ku arkaysaa oo way buux dhaafiyeen. waxa ay geysteen dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay beeraha inay cunaan. cilmi-baarayaasha iyo saynisyahanadu waxay isku waafaqeen inay xal u raadiyaan dhibaatada uu ku hayo bakteeluhu, waxayna keeneen xawayaano cuna bakteeriyaasha oo ay ka mid yihiin ayaasha iyo dacwada, laakiin taasi way u socon weysay. 1996 waxay sii daayeen bakteeriyaal ay ku dureen irbado wato cudur. waxaa ku dhintay cudurkaas 90% bakteeriyaashii, laakiin waxaa ka badbaaday 10%, waxayna la qabsadeen cudurkii. zaaidna u batay imka waxay marayaan 200 milyan meel walba Australia ka mid ah oo ay joogaan, kuwaasoo weli cudurkii lagu daray wata, taasoo ka dhigaysa inaan hilibkiisa la cuni karin.